qaadanaysid oo hambalyada aad nala wadaagaysid waxaana rajaynaynaa priority ay ka dhigantay waxa guul ah maanta arrintan si muddo ku sheegto arrin historical taariikhi iyo maanta ma ku lahaa dalkan 2017 markii aan shaqada la wareegnay jabin oo halgankiisa kusoo jirtay muddo dheer insha madaxweynuhu runtii aad ayuu noo soo dhaweeyay wuxuuna u arkay arintan inay tahay arin guul weyn ee la soo gaaray oo ma aragtay muwaadiniin Soomaaliyeed oo xuquuqdoodu ka maqnayd in maanta ballanqaadka ay xukuumaddu suubisay oo ra'iisul wasaaruhu suubiyay in ma aragtay ay noqoto mid oo ma aragtay laga miro dhaliyay oo ballantiina laga soo baxay taasoo ay daliil u tahay hindi sharciyeedkii la ma aragtay la soo ansixiyay hadda wixii ka dambeeyana waxay tagi doontaa golaha shacabka iyo ma aragtay aqalka sare ilaa uu madaxweynuhu saxiixiisa kor saari doono madaxweynuhu wuxuu naga ballan qaaday inuu arintan inta karaankiisa ah iyo ma aragtay inuu ma aragtay arintan nagala shaqeyn doono uuna ma aragtay u arkayo inay tahay arin muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya bismillah waxaan maanta la kulanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan guddoonsiinay runtii guul bay noogu dhamaatay waa arin taariikhi waa arin aan dhicin abadiyan ilaa dawladdii dhexe 91 naga burburtay laga soo bilaabo waa markii ugu horeysay naafada ay fursadda caynkan oo helaan hay'adan macnaha ee nooleed marka waxa weeyaan waxay noqon doontaa hay'ad adeeg bixiso oo dadka naafada shaqaalayso oo iskuulla u furto oo ka qayb qaadata tababarkooda iyo inay qayb ka noqdaan bulshada waxa sharaf noo ah in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka aan maartay uu nagu casuumo hoygiisa annagoo maartay nagu hambalyeynay shaqada muhiimka ah ee maaldood khamiis la soo dhaafay ay meel marisay xukuumadda Soomaaliya taasoo ahayd dhismaha hay'addan arrimaha naafada ka shaqeynaysa ee heer qaran hay'addaas aan aaminsanahay inay wax badan oo caqabadaha maanta haysta dadka naafada ah inay mataqaanaa ay ka gudbi doonto haddii Ilaahay yiraahdo